بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورصحابي سو دوادا waxaan maqli jiray gaal god igu jira garuunka ii keena oo dhiganta gaal ayaa si dagan aan ku helay oo aan rabaa inaan la faah ka shiday hubka noo soo qaada ninka Abiy Ahmed aha godkiisa ayaa biyo ugu galay waxaa laga keenay petition waxaa la yiraahdaa codsi lagu codsanayo in wax la bedelo ama wax laga qabto oo qof looga institution ama company looga cabanayo qof kamid ah waa kana company-ga oo petitions ka sameeyo waa caalami wax la og yahay waaye waxa la yiraahdaa change.org ayaa la yiraahdaa petition kan waxa loo diray hay'adda Norwegian-ka waxa loo diray bixisa Nobel Peace Prize-ka Dear Norwegian Nobel Committees ayaa la yiraahdaa Maxamed Sameeyay Ali Maxamed Sameeyay oo Soomaali ah ayaa wuxuu bilaabay petition kan petition kan wuxuu helay falcelin aad u ballaaran Soomaali Ethiopian oo isugu jira Amharo Tigray dadkii oo Abiy Ahmed laayo dhan ayaa soo saxeexay petition kan insha Allah hadii la admo linkigiisa waxaan soo dhigi doonaa commentiga qaybta hoose videogan ayaan ku soo insha Allah hadii la ku soo lifaaqi doonaa waxaana laga rabaa in macnaha maxalla hawada aan geeyno sign gareeno insha Allah hadii la admo hadii aad sign gareyso waa sign gareey commentiga ku soo qor si aan u ogaado inta qof macnaha maxalla page-kayga kasoo sign gareysay okay marka petition-ku muxuu yahay ninkan ay u jeedin xilligii oo la heshiinayay dawladda Eritrea oo dhulkeedii u celinayay oo xoogga Ethiopia uga qabsatay malisana uga qabsaday ayaa waxa la yiri nin fiican oo nabadda ka shaqeeya waay markuu imaanayay oo lagu kadsoomay ayaa waxa la yiri ninkan nin fiican waay marka hay'adda Norwegian-ka ah Nobel Peace Prize waxa waa qof nabadeed qofka nabadda adduunka sanadka ugu fiican ayaa waxa la siiyaa Nobel Peace Prize waa qof Nobel ah wanaagsan nabadda jecel ay ka dhiganta Abiy Ahmed dilira ka war marka waa qof Nobel oo nabadda jecel oo wanaagsan dilira ka war marka macquul ma hay'adan marka waxbay bedeshaa oo calashan inta ku qoran change.org ay ku qoran tahay waxaana loo diray petition ay aruuriyaan petition-ka dadka ka soo farceliya hadda waxay maraysaa sidaan idin sheegay 22,955 ay maraysaa hadda waxaan u soconaa next goal waxa waaye 25 kun ka badan aan heli kareynaa dadku hadii ay gaaraan ugu yaraan 100,000 oo qof ninkan Nobel Peace Prize waa laga qaadayaa waxa uu huwan yahay oo hadda Nobel Peace Prize nimada ah oo isagu sharafto arkana waa laga xayuubi doonaa insha Allah hadii laadmo wixii lagu eedeynay dhamaantood waa kuwana inuu Soomaaliya ku xadgudbay inuu saan yeelay waxa soo ku qoran tahay dadkii ayaa sidoo kale macna aaraadooda ka soo baxshay oo waa kana supporter voices dadka support gareynaya voice-kooda ama codkooda waa kan aan si dhigeysan Abiy Ahmed, he is a dictator and he's a killer and he's creating a violence in the region. So I'm signing the petition to take the Nobel Prize back. Okay, Nobel Peace Prize in laga qaado la siiyay ayay dadku codsanayaan in Abiy shouldn't hold qofkaani waa Ethiopian calashan hadii aad leedahay Soomaali bis baalka sayn gareysay Soomaali bis maaha waa Ethiopian Amharo Tigray isugu jira iyo qof walba Nobel Peace Prize at all and we should hold him accountable for killing Tigrayan people and for killing Amhara people and for also killing his own people Oromo while also committing genocide in other regions as well while whether they are operating under his orders or and not only that now he's ninkan waxa uu sheegayaa laakiin horta caayay nagu tahay inuu 22,000 bis oo sii ahaado petition kan signatureskiisu waa inay ahaadaan u yaraan waxa la rabaa markaan 1 million inaan gaarno 1 million video aan soo dhigay bisa views noocaas yeesha marka waa inaad ka soo wada qayb qaadataan maanta oo kaliya waxa soo saangareeyay 542 qof ayaa soo saangareysay maalintii ayaa la rabay 100,000 qof inay soo saangareeyaan si aan ninkaas uga aarsano ma Soomaali kaliya ma fiirada ninkan oo kale Abiy Ahmed, the devil incarnate, is an embarrassment to the Nobel Foundation. Revoke the peace. Halaga qaado leeyahay Nobel Foundation ka hadlay waa hay'adda Norwegian-ka bixiyo dadka wanaagsan oo macnaha maxalla nabad sameeyaasha ah oo dadka dhexdhexaadiya ayaa la siiyaa sida Kofi Annan oo kale ayaa la siiyay dad badan oo caan ah la siiyay
aan intusa marka islaantaan oo kale Abiy Ahmed is anything but a peacemaker. He is like killing thousands and thousands of people in Amhara region of Ethiopia. He is a serial killer, a terrorist, cold. naagta hadda waxay ku magacaawday nin oo argagixisa ah, serial killer ah. serial killer waxaa loo jeedaa qof dad badan laayay, qof macnaha maxaa la arxan daran, waxaasoo dhan ay ku magacaawday. adiga marka videogan cidna kaama rabto, laakiin waxa lagaa rabo ugu weyn waxa waa inaad soo saagarayso oo tiradan aad badiso insha Allah haddii ilaahmo. balaaana horta dad badan soo saangareeyay sidaan filaayo mujeedido hadda dadkan ma Soomaaliya u malaysaa hadda bal dadkan fiir hadda Soomaaliya bilaabay yarka Soomaali waa bilaabay sirka bilaabay waa Soomaali markii laakiin waxay kula tahay in dadka lacagta ku bixinayo Soomaalidu lacag ma ku bixinayaanba dadka lacagta ku bixinaa inteeda badan waa Ethiopian ama macnaha maxaa la tikraha ka soo jeedo ama ka soo jeedo ama xaraha ka soo jeedo ninkaan oo kale ee talaamka bebe ad salaam negatu yeshu barabara hayla maryam something fitsum wonder malaik waxaasoo dhan waa Ethiopian-ka ka soo horjeeda marka waxaa la rabaa inaan lacag ku bixino barnaamijkan in macnaha maxaa la lahayaa aan diiri gelino $30 uu ku baxshay qofka oo la yiraahdo wala malaak lacagta la bixinayo qofka founderka ama sameeyay ma qaadanayo company-gana qaadanayo kadibna waxay sii tusayaan dad badan oo kale ay sii tusayaan marka haddaad rabto inaad lacag ku darto yes I will chip in $8 to distribute this petition ana hore u baxshay laakiin haddana waa ku daraya verify continue as request okay meeshaan oo kale waa kana insha Allah hadii aad ma ku darin doonaa information-kayga aan qarinayaa marka waxaa la rabaa saxaabay inaan ka qayb qaadano barnaamijkan inaan ka qayb qaadano riixno ninkaan si kasto aad wax ugu dhibi karayso inaad ugu dhinto inuu Nobel Peace Prize sii haysan inuu nabad sameeyo oo sa sheegan ayaa la rabaa wax weyn ee la rabo intaas waa marka ogaada insha Allah hadii aad ma hore u socono aan ninkaan ka taqalusno insha Allah hadii aad mo linkiga barnaamijkan ama sida loo sameeyo waa in Soomaa linkiga laakiin waxaan ku reebi doonaa insha Allah hadii aad mo qaybta hoose ee commenting videogan YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo meel walba ay ahaataba insha Allah hadii aad marka insha Allah aan ka soo wada qayb qaadano aan sii share gareeno dadka la wadaagno dadka Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliya oo arintan baysanaya oo aan ahayn qof oo macnaha maxaa la iska xabashi kalkaal aan ahayn waxaan ka rabaa inuu sii share gareeyo insha Allah hadii aad qof la wadaago ku mention gareeyo asxaabta horaha loo wado insha Allah hadii aad wassalaamu calaykum